Kismayo, Jubaland, as the third stop on our visits to federal member states throughout Somalia. As on the other stops, we have discussed important national issues for 2020, including elections, constitutional reform, continued efforts to pursue security gains against Al-Shabaab, debt relief, and the development agenda. And we've benefited from our consultations with a mix of political leaders, civil society organizations, elders, and others. Since we are here in Jubaland, we are also mindful that many aspects of the political situation remain unresolved. And we also took the opportunity of our visit to Jubaland to seek the views of all of the stakeholders with whom we had contact on what might be done to improve the relationship between Mogadishu and Kismayo for the benefit not only of the people of Jubaland, but in order to make further progress on the national agenda throughout Somalia. Again, we're very grateful for the warm welcome. We will make a further statement prior to our departure this afternoon, but we thank the people, the authorities of Jubaland for this warm welcome. Thank you very much. waxaa maanta sharaf weyn noo ah inay nagala soo qayb noogu yimaadeen visit SRSG-ga iyo ambassador IGAD African Union qodobo saldhig u ah wada hadaladeeduna waxay ahaayeen qodobka ku saabsan dastuurka dhamaystirkiisa iyo doorashada 2020 arrinta deyn cafinta iyo xoreynta deegaanada maqan iyo la dagaalanka shabaabka iyo sugitaanka amniga arrinta dastuurka waxaan isla qaadanay dhamaystirka dastuurku inuu yahay udub dhaxaadka dowladnimada hore u socodka iyo Soomaalidu waxa kaliya isugu iman karaysa inay tahay in heshiiskaas ay gashay ee dastuurka ah ama constitutionka inay noqoto midka base-ka u ah dowladnimada Soomaaliya taana ay cid waliba ra'yiga ku leedahay iyo shaqada ku leedahay ka qabato arrinta doorashooyinka 2020 waxaan isla qaadanay ka wada hadalay ra'yiga uu yahay inay tahay wax u baahan wada tashi inay ka wada tashadaan dadka stakeholders-ka dowlad goboleedyada dowladda federaalka iyo cid kasto ay khusayso oo arrintaas doorashooyinka ay muhiim u tahay in la tala geliyo oo taladu ay noqoto talo la wada leeyahay wax qof qaadan kara inaysan ahayn la dagaalanka Al-Shabaab iyo in amniga la sugo wuxuu ahaa qodob aad xasaasi ah muhiimna ah waxa ugu badan ay ahayd in loo baahan yahay in laga shaqeeyo si dhab ah in la dagaalamo Shabaab wadanka la xoreeyo la xisaabtamo ciidamada la isu keeno kuwa AMISOM iyo kuwa Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada intuba inay shaqadaas si dhab ah wada qabtaan qodobka afraad oo ah arrinta deyn cafiska ah oo nagala hadleen waxay ahayd inaan diyaar u nahay in deynta la cafiyo deyn cafiskaasina macnihiisu yahay in dadka Soomaaliyeed ay bal hore u soo dhaqaaqi karaan oo taa macnaheedu uu noqonayo culays saaran Soomaalida oo ilmaha dhalan doona waxay tahay wax dul saaran taas ay keeni karto horumar iyo talaabo hore in loo qaado arrinta deyn cafisku markaa waxay ahayd qodob aad u muhiimsanaa oo aan isla qaadanay arrintaas in laga wada shaqeeyo dhamaystirka arrinta deyn cafiska ka bacdi si Soomaaliya ay u hesho inay dhaqaalana samaysato horena ay uga socoto waxa soo raacay waxay arrinta Jubaland oo ahayd mid u baahan in laga wada shaqeeyo guud ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo isu imaatinkooda iyo midayntooda iyo wada tashigooda si qodobadaas oo dhan ay u hirgalaan waxay ku xiran tahay waan isla sheegnay inay tahay wada shaqeynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu inay saldhig u tahay qaabka in loo sameeyo Jubaland horey bay u socotay dib u heshiisiin badan baan galay wax badan baan ka soo shaqeynay waxaan rajaynayaa saaxiibada safarkooda dambena inay sidaasi ka fiican waxaan kala hadalay dhibaatooyinka ay keeneen daadadku oo magaalooyin badan oo gobolka ka mid ah roob badan ay ka deen webigu hadda agteenu marayaa soo fatahay dhulka kale iska daayay ay u baahan yihiin dadka deegaanka inay helaan xuquuqda ay ku leeyihiin kaalmada caalamiga la bixinayo qoliyaha qaarkood EU-da iyo African Union iyo gooni waan soo aragnay iyagana guud ahaan arrimahaas aan ka wada hadalay aad baad u mahadsantahay. Thank you very much.